maanaan cabbi jirin oo maanaan maydhan jirin oo maanaan fooldhaqa jirin oo weysadaaba dirqi ahayd imikana saacado ganacsiya la keenay oo ma garanaysaa cudi soo dhex marsatay wakaaladda waxa weeye ninka wakaaladda biyaha jooga niyow ha iscasilo dee waxay u qabtaan daayo haddana hadday $50 sii dul saareen dhibaatadeeday leedahay waxaan waa masaakiin waa qof ku daba nool shacabka ku dhaqan magaalada caasimadda Hargeysa ayaa si adag uga horimay qaraar dhawaanta ka soo baxay wakaaladda biyaha Hargeysa kaasi oo ahaa inay dadweynuhu bedelaan saacadaha guryaha uga xidhan ee biyaha kaasi saacadiiba ay tahay $50 haddaba se waxa ugu ogaano dareenka dadweynaha arrintaasi ku aadan waxa telefishinka Sunniis mikrofoonka la dhex qaaday shacabka ku dhaqan caasimadda Hargeysa intooda badan waxay si adag uga horimaadeen qaraarkaasi wakaaladda biyaha dadku biyo ma helaa mise ma helo iyo saacadan dadka leeftaal idinka gelinaya masaakiinta ah in jawaabteedu waxa weeye dadka inta badan Hargeysa biyo meesho dadka waxa looga dhaamiyaa darar weyne xumbo weyne tooxyada galbeed iyo bariba ayay ilaahay u diray boodaha shacabka u soo dhaamiya dadku biyo Hargeysa kala badh 3 meelood meel bacda biyaha ee qasabada koow waxaan maqlayay waxa la soo saaray saacado ay leedahay wakaaladda biyo ay leedahay wakaaladda biyo saacad ma leh waxa loo nin baa dal ugu maalgelinaya dadka danyartii aan qaadiba karin ee lacagta biyo iska bixiya ee saacadda hor u jirto saacaddani maxay tahay dambe soo saacadni leeyahay maaha yaa saan waxaan arkaynaa khalad baan arkaynaa way noogu jirtaa qasabadu laakiin ma aragno wax biyo xaafadda quraadheer leedaana ilaa intan aqleystay ilaa imaka hoogun baanu ka qodnaaba biyaha hadday saacada soo saartay kolley iyo haddii kaleba annaga waa noo halkii ama dhallinyaraha haato ama 7-6 shay maqnaataa habeen bay soo dhacdaa habeenka ama inamada u soo jeeda ama hablaha ama waalidiinta qaar baaba dhur ah dee dhibaatadaasaba annaga naga haysataa taana ka sii daranba hadalkeeda badda dee markaa waxay noqonaysaa in booyadaha bishii 4 jeer laga shubtaba oo wakaaladaba laga guro iyadoo markii horeba aan meesha biyo lagu haynin haddii haddana saacad $50 la keenay wallaahi waxa weeyaan dee talafara way ka sii baxday baan u malaynayaa biyihii oon magaaladii soo gaadhin in dadkii laga qaado lacag oo dee la jaajgareeyo lacag iyagoo dee muwaadiniintii xaqa u lahaa inay biyo helaan marka horeba oo aanay biyihii soo gaadhin laga qaadaya lacag fikirkaan waxaan u arkaa fikir aan habboonayn weli shaqadii oo socota magaalada qaaraan biyaha la gaadhsiin weli hawsha socoto iminkana saacada dadka la weydiinaya ruuxantii waxaan odhanaa fikirkaasi waa fikir marka horeba yaro khaldan oo lagu degdegay taana waxaan arkaa dad dee u gooniya inay wataan oo waa laga wanaagsan yahay mana wanaagsana waxaan jeclaan lahaa marka hore fikir ahaan marka shaqada la dhammaystiro oo biyaha dalka la soo geliyo oo diyuhu bilaamaan inaa wixii tallaabo ee dambe laga qaado ayaan anugu jeclaan ruuxantii aragti ahaan markaa ruuxantii dowladda waxaan jeclaan lahaa inay taa yidhaahdaan ha la joojiyo ha lagana qabto dadka aragataana ilmo wanaagsan wallahi aniga arrintaas marka hore waa la surumsanaa lama weysaysan jirin lamana maydhan jirin lamana istijoo jirin imikana saacad buu keensaday $50 uu yidhi waxa weeyaan dee ganacsi buu soo dhex marsaday ama ganacsigaa dee dawladdu ha ku jirto maalinba bari ha la goosto shacbiga oo maalinba garab ha la jiito ama waxa weeyaan sidaa ha lagu wado Soomaaliland waa markayga nin walba halkiisa ha ka jiito waxaanu leenahay qoladaasi dawladda way ceebaynaysaa iyo xukuumaddaba soo dhex marsatay saacadda ganacsiga wakaaladda biyaha salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu inay ganacsi tahay baanu fahmaynaa waa ganacsi oo waa sidii kiishashkii halkay mareen bixii la daadiyaa ee beecadda loogu dareeraye waxa weeyaan arigaa cunayo oo xoolihii baa nagaga baayla lahaa way socdaan kiishkii ganacsiga ahaa ee ninka loogu feebar sameeyena qolada ganacsatada loogu feebar sameeyena wuu shaqaynayaa oo kaasoo isaguna wuu socdaa kaa kiisi weeyi tanna waa kaa kiisi markaa shacbiga looma turayo cod turaysaana ma jirto kan waxaan u arkaa fikir aan habboonayn oo aan fiicnayn wixii da muwaadinka laga qaadaya ee taasi waa halkeeda laakiin waxa weeyaan horta biyihii horta la helo caasimaddu biyaha hesho laakiin marka iyadoo aan leeyahay iyadoo biyihii la helin baa lacag la qaadaya de waxa weeyaan dadweynuhu waxa weeyaan dadkuna imika waxbay barteen aqoon bay yeesheen waxbaa la kala garanayaa
markaan waxaan odhan lahaa oon hadalkayga ku soo gunaanadi lahaa caasimaddu marka hore biyaha hesho wixii markaa la jaajgaraynaya dadweynuhuna way ogol yihiin macquula cabdirasaaq axmed cabdikarim tasoni tv hargeysa